بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله تعالى سي عادي لو هنجرتay khudbadan wax yar tacliiqinayna waxay ku saabsan tahay adduunkan aynu joogno xilli kastoo la joogo marna ma ayna dhacaynin dadku inay yaani si caadi iska ahaadaan oo afkaar aan u kala duwanaanin oo yaani lagdanka jira xaq iyo baadilku saan buu u socday marka waxaan soo qaadanaynay mawduuc ah islaamkeenu quraanka markaad akhrisid wuxuu u imaaday bini aadamku sidoodaba inay noqdaan dad xor ah oo ilaahay kaliya adoomo u ah meesha la isku hayo marka waxay tahay dada waxay rabaan inay dadka ka sareeyaan oo ay dadka adoonsadaan oo loo hogaansamo marka haday dhacdo taa in laga yeelo waa la caabuday oo rabbi ay dadka u noqdeen islaamkuna wuxuu u imaadayba inuusan marna ogolaanin in bini aadan uu dadka isaga dhigo inuu asaga rabbi u yahay taariikh waxaan soo qaadanay quraanku inooga sheekeeyay waxaa ka mid ahayd suuratul kahfi oo jumca ka saan akhrino wiilasha dhalinyarada ah asxaabul kahfiga la yiraahdo xilli waxay ku soo aadeen nin boqor ah oo ilaahnimada sheeganaya ay tahay yani kelitalis ah dadkiisa oo markaa joogayna way iska raaceen oo saasay raali ku noqdeen dhalinyaradii waxaa u cuntami weysay waaqaca ay ku jiraan iyo si la iska rabay markaas ilaahay wuxuu inooga qisooday ilahay wuxuu nahnu qussu calayka naba'ahum bil haqq waxaan idinka sheekaynaynaa nabiga waxaan kaaga sheekaynaynaa dhalinyaradaas warkooda oo si dhab ah waxay ahayd innahum fitatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan warabadnaa calaa quluubihim waxay soo jeediyeen waxay dhaheen haaulaa'i qowmun ittakhaduu min duunihi aalihatan lowlaa yaatuuna calayhim bisulطaanin bayin macnaa way diideen yani in ay hoggaansamaan waantay isaga carareen ee suuraddaas looga sheekeeyey waxaan kaloo soo qaadanay ambiyada ilaahay markii la soo diro dadka markay u imaadaan nolosha ay dadkaasi ku nool yihiin inay beddelaan oo sida risaalada ilaahay waafaqsan ay ka dhigaan ayay u imaan jireen waxaynugu soo ziyaaday marka kitaabkeenan qur'aanka ee hadda aan haysanno oo ilaahay ugu talagalay ilaa qiyaami saaca inuu noqdo manhajka ummaddu ay qaadanayso ay ku soconayso dad intay dhinac iska dhigeen ayagu say rabaan wax u habeeyey oo haddana raba sidaas inay dadku ahaadaan labaa loo kala bixa marka kuwa saas iska ogolaaday oo yidhi sidooda ha iska ahaadeen oo lagama hor imaado oo waa la iska yeelaa iyo kuwii yidhi si dhallinyaradii innahum fitatun aamanuu birabbihim ahaa oo yidhi ma yeelini taas ayada ah diintan islaamka waxay u imaatay ha lagu dhaqmo halkaasuu marka siraac uu ka socdaa waxaan soo qaadanay marka islaamkeennu inuu yahay islaam dhammaystiran oo aan aqoonin waxa loo yaqaano in diinta la kala qaybiyo oo loo kala qaybiyo intii cibaado la yidhaahdo oo masaajidka iyo tukashada intaas in lagu koobo islaamka intaas waa qayb ka mida laakiin islaamka oo dhan ma ah islaamku waa habnololeed dhammaystiran oo dadkao dhan la raba inay u hoggaansamaan ka madaxda iyo ka madaxda loo yahay kulli inay wada qaataan sayidina abubakr radi allahu canhu markuu khudbadii ugu horreysay uu jeediyey wuxuu dadka ku yidhi haddii aan wanaag iyo khayr aan qabtana iigu kaalmeeya haddii aan qallooc sameeyan ama aan xumaadana itoosiya marka sidaas ayaa inaga manhaj inoo ah oo dardaarankaan haysan waxaa ka mida nabig wuxu sal lla alay slam qofkii gadaashayda noolaada khilaaf badan ayuu arki doonaaye facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin marka sunnatu alkhulafaa'i araashidiin sidee bay ahayd ma waxay ahayd sida dadka qaar ay u malaynaayaan daalimka intuu daalim iska noqdo oo awooddiisa looga cabsado in la yidhahdo farahan isaga qaadno bal waxaa ka sii daran markii dulmigiisa haddana loo diimeeyo oo la yidhaahdo waa toosan tahaye adaa fiicane hor u socob oo dadka dhahay war saas dankuuma aha oo haddii aad qalloocato waan ku toosinaynaa joogna ay u arkayaan inay yihiin dad qalloocan sayidina abubakar wuxuu yidhi adiicuunii maa adactu allaha warasuulah ilaahay rasuulkiisa intaan adiicsanahay iyo adiica dadka madaxda waxaa laga rabaa marka si warkooda loo yeelo ayaga kow waxaa laga rabaa maa adactu allaha warasuulahu laakiin qof ilaahay rasuulkiisa aan adiicaynin haddii mid intuu la soo boodo u yidhahdo ayadoo loo jeeda hadda ilahay rasuulkiisa inuusan adiicaynin maxaa saa u leedihiin in la adiicaa waajib ah goormaya in la adiica waajib ay tahay waxay waajib tahay markii ilaahay rasuulkiisu adiicaayo imaamka oo salaada iyo hogaamiyaha ama madaxweynuhu waa isku mid waxay isku mid ku yihiin salaadda ma ka yeelaynaa hadda salaad jumcaan tukanayna tusaale ahaan laba ragcaa salaad jumcada la tukada khudbada haddii aan idhaahdo imaam aan idiin ahay khudbada jumcada markaan salaada khudbada dhammayno oon tukanayno
saddex aan ka dhigayna hal ragcaan ku daraynaa oo markii laba ragcaan tukan haddaan iska istaago ana og inaan laba tukaday idinka maxaa samaynaysiin waa ii sheegaysa waxaa leedahay subxaana allah macnaa haddaad hilmaansan tahay inaad laba tukatay labadii way kuu dhammaatay subxaana allah ilaahay baa nasahane soo noqo oo meeshaada fadhiiso haddaan idinka diido oo idinkoo subxana allah idinku haya aan iska sii wata ragcaddii saddexaad maxaa samaynaysiin diintu waxay qabta waxaad samaynaysiin ima soo raacaysiin imaamkii baa istaagay saddexuu ka dhigaya si aan yeelno ma lehe saddex aan tukanno suurtagal ma ah haye waa fadhinaysiin anna kor aan iska jooga haddaan rabo waa la isugaa waa la sugaa waa la sugaa adigii ogaa inaan saddex ka badiyey haddii aan soo noqon waayo ima soo raacaysid waa fadhine dhinaca kale salaadda ma ka baxaysid fadhigaa igu sugay maxaa yeelay adu inaad wax toosiso khalad dhaca inaad toosisaa la rabaa ma ogiye in dadka jamaacada la kala diro oo jamaacada ay burto lama rabo diinteenna islam fiirsay say wax u ilaalinayso imaamku haddii uu wixii isku ogaa ka baxo hala celiyo hala qabto subxaana allahi hala joog hala dhaho hadduu soo noqon waayo jamaacadii ha sii fadhiso markuu soo noqdo oo ragcaddii uu soo dhammeeyo adna atixiyaadkaaga iska sii wado ha ka bixin salaadda iska sii wado iska sii wado markuu soo dhammaysto assalaamu calaykum markuu dhaho adna assalaamu calaykum markaas dheh meeshaas maxaa ka dhacay khaladna kumaadan raacin jamaacadiina maadan kala dirin dowladnimidku waa sidaas marka hogaamiyaha wixii la isku ogaa oo adiicuuni ma adactu llaha warasuulahu waa laga yeelayaa laba ragcaan isku ognahay labadaas waa inaad dhahdaan ha ka badinin haddaan ka badiyo laba ragcad ayadoo salaad jumca ay tahay aan ka badiyo ka badanaan tukan aan dhaho ha isoo raacina waay hadda waxaa taagan madax waxaa inoo ah kuwa raba wixii la isku ogaa inay ka baxaan oo maxaa la isku ogaa waxaa la isku ogaa dadka muslimiinta ah waa walaalo waa dad mid ah inay saaxiibbo ahaadaan wada socdaan kuwa aan gaalada oo muslimka aan hayna inaan sokeeyo laga dhiganin oo aan laga xigsanin mu'miniinta yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu biطaanata min duunikum soo ilahayna ma lah laa yattakhid ilmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni اlmu'miniin madax meeshaana imaanaysa gaaladii ayaa waxay saaxiib ula yihiin intii loo baahdo soo in la yidhahda maaha war jooga laa yattakhid ilmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni اlmu'miniin inama almu'minuuna ikhwatun soo insaan la dhahda ma rabo wadaad meeshaan wuxuu la soo taagan yahay madaxda lama hadlo gaaladooda ha iska wateen waxay doonaan ha sameeyeen idinku faraha isaga qaada seen faraha isaga qaadaynaa sayidina cumar khudbad waxaan ku soo qaadanay meherkuu ka hadlay gabdhaha meherkooda waxoogaa qaali laga dhigay markaasaa yidhi waxoogaa si loo yaraa meherka loo fududeeyo aan xadidno oo in aan ka dhigno aan isla ognahay waa khudbadii gabar ay istaagtay waxay ku tiri xageed ka keentay in la xadido meherka labadan qof ay isbeersanaysuu ka dhexeeyaa wixii ay ku heshiyeen inay ka dhiganaayaan ilaahayba ma xadidin adu seed u xadide ilaahay wuxuu yidhi wa aataytum ixdaahunna qindaaran haddaad siisaan haweenka maal badan haddaad siisaan oo meherkii ah falaa ta'khuduu minhu shay-an waxba ha ka qaadanina ilaahayba wax badan ayuu sheegay in la siin karee adu waan yaraynan xageed ka keentay waa cumar ibnu khadaab hadda gabaraa la hadasha soo maa muxuu yidhi gufraanaka ilaahu ii dembi dhaaf akhطa'a cumar wa asaabat ilmar'a cumar wuu khaldamay gabadhan ayaa sax sheegtay meher la xadidaaya male ummadda islaamka ummaddaas xorta ah goormaa la isgumaystay sayidina cumar xilgiisa waxaa dhacday masr baa waxa xukumayay camr ibnu caas wiil uu dhalay camr ibnu caas iyo mid aan muslim ahayn ayaa farasay ku tartameen waa la tartamay orod kii oo aan muslimka ahayn ayaa ka badiyey wiilkii uu dhalay guddoomiyaha gobolka camr ibnu caas kii intuu xanaaqay oo guddoomiye u dhalay yuu wiilkii ka badiyey ee muslimka aan ahayn ayuu garaacay de aabbihiya gobolka haysta mogta yaa la hadli kara markaasaa wiilkan la garaacay aabbihii ayuu u sheegay wuxuu yidhi saasaa igu dhacday maanta wuxuu idhi waxaan u dacwoonaynaa amiirkooda cumar ibnu khadaab oo cadaalad ah warqaduu u qoray wuxuu yidhi saasaa nugu dhacday cumaraa fariin soo faray wuxuu dhahay afartiinaba imaada camr ibnu caas iyo wiilkiisa iyo wiilkii la garaacay iyo aabbihii labadan marka muslim ma ah labadanna waa muslim cumar ibnu khadaaba yaa dacwadu u qaadaay way hor istaageen arrintii waraysay saasay u dhacdaa leyi bes ol intuu u dhiibey shaabug intuu u dhiibey yaa kii aan muslimkaa wuxuu yidhi midkan oo ku garaacay garaac wuu garaacay markaasu wuxuu yidhi aabbihiina garaac guddoomiyihii gobolka camr ibnu caas markaasuu yidhi aabbihii muxuu iga hadlayn u garaacaa wuxuu yidhi wiilkan isku hallayn aabbihii isku hallaynaayo
ayuu kuugu xadgudbay marka maadaama magaciisa lagugu dulmiyey waa inuu asna la garaacaa wuxuu yidhi aan maya iska dayn marba haddii intaas cadaaladda feeri kelimo wuxuu sheegay sayd cumarkaas wuxuu yidhi caan noqotay oo in dahab lagu qoro istaahisho oo uu yidhi asagoo camr ibn caas la hadlaaya iyo wiilkiisii mataa istacbadtum الnaasa waqad waladatum ummahaatuhum axraaran goormaa dadka addoonsateen hooyooyinkood ayagoo xoray dhaleene yaa dadka addoonsada idinka marka islaamku sida uu yahay marka islaamkaas xortaan rabnaa laakiin islaam oo boqorrada iyo madaxweynayaasha laga cabsanaayo hadda maanta waxaa socda magaalada jidda sacuudiga oo dhan dheh khudbooyina la akhrinayaa khudbado dhan maxay ku saabsan taqaanaa fatwaa la soo saaray boqorka malaha iyo asxaabtiisa u soo saaray waxay yidhahdeen ururka la yidhahdo ikhwaan muslimiinka inuu argagixisan yahay masaajidaha looga khudbeeyo kulli ikhwaan muslimiinna maxaad ku maqlayseen madaxweyne mursi ka soo bilow dad madluumiin ah oo xabsida ka buuxa oo waddankooda u shaqeeya oo la dulmiyey caqligu wuxuu keenayaa qofka madluumka in la garab istaago laakiin in daalimkii la garab istaago oo madluumkii la yidhaahdo asaga gardaran taas marka mushkilo ma leh waxaa dhacaysa ma taqaanaa qofka haddii la dulmiyo markaan buu soo baxaaba hadda ikhwaan muslimiinka xabsi si looga buuxinayo ama sacuudi ha joogeen ama masar ha joogeen ama imaaraat ha joogeen xabsisay ugu jireen culimmadoodii hadli lahayd oo dhan xabsiyay ku jiraan ilaahay wuxuu soo saaraya marka kuwa ka soo horjeeda ee boqorrada taageerada u ah ayaa magacooda qaadqaadaya marka dad badan marka waxay dhahayaan war dadkan wax laga sheegaayo ee maanta khudbada lagu soo qaadanayo bal horta maxay yihiin aan baarno ma argagixisa mise argagixisa ma ah markii la baar waxaa soo baxaysa dadkan inay yihiin dad u imaaday faham ah war dadka muslimiinta kitaabkooda qur'aanka ah waxaan la kala qaadaayo ay u bixiyaan nidaam alislaam asiyaasi wax la yidhahdo islaam siyaasi iyo islaam hayr siyaasi ma jiro islaamku wuxuu imaado o dhan waxay tahay dadka in la maamulo wa an ixkum baynahum bima anzala allah kuwa boqorraa marka oo ayaga xukun haysta yaa say dadka uga ceshadaan ya waxay dhihi kuwaas xukun ay rabaan oo waayo hadday ayagu xukun rabaan doctoorkan oo faysal qaasim ee aljaziira ka hadlaa wuxuu yidhi waxay dhahayaanu yidhi boqorrada iyo madaxdaasi islaamiyiintu yascawna lisulda xukunkay u socdaan markaas waxaan weydiinaa boqorrada iyo milatariga afgembiga ku qabsada hal yascawna bayna safa walmarwa ayagoo sacyigooda safa belmarmay ordaanu dhahay soo ayagu xukun ma haystaan xukun in la raadiyo hadday dembi tahay adu maxaad u haysataa marka laa tanha can khuluqin wa ta'tiya milow dadkay ka ceshanayaan marka dadka guud ee aan xaaladda la socon ya waxay u sawirayaan ayagoo kuraastooda ilaashanaya kuwaas waa dad xun kuwaas waa nooc xun iska ilaaliya marka taas ma soconayso waxaan rajeynaya insha allahu tacala ummadda islaamka maanta meesha ay marayso hadda waa artay markii oo nabiga sal allahu alay slam faransiiskii wax ka sheegeen caalamulislaami oo dhan intiisa badan wuu wada kacay kuwa waxay soo dhejiyeen waxa dadka kiciyey waa ikhwaan muslimiin war dadkan ayagaa diintooda difaacanaya ayagaa nabigooda difaacanaya adigu haddaad rabto in shib lagaa dhaho khayrka oy diintu farayso bal adu samee oo boqorku aad intuu soo fariisaa yidhaahdo saacaddan laga bilaabo waddankan waa ardulxaramayni shariifayn muslimiinta waa meeshay adduunka ugu jecel yihiin qof muslim oo adduunka jooga oo la dhibaatayn kara ma jiro muslimiinta oo dhan waxaan ugu baaqayaa inaan halkan aan hoggaan ka noqonno oo sidii asxaabtu ay halkan uga dhaqaaqeen aan diinta u soo hirgelinno oon ka shaqayno bal waa kaas qofka hor imaada ha la arko laakiin maraykan aan dabada kula jiraa oo trump baa lacagtii eber ka dhigay oo ka dhameeyey oo ingiriis ah meesha igu haaya haddana saasay tahay waxaan dhahayaa kuwaas oo iga soo horjeeda xukunkay u socdaane waa argixise naga ilaaliya qof kursi ilaashanaya wuxuu doonay ha dhaho ilan kursigiisu ilaashanaya lakin waa wax laga xumaadaa qof magac diimeed ku hadlaaya oo haddana diintiisa yahayd aan uga run sheegayn haddii diinta cadaalad halisku xukumo la yidhaahdo xukaamta madaxda carabta xaaladda ay ku sugan yihiin haddii diinta loo bandhigo ma sidii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan ba ma aha malaysiyaanka waxaa laga sheegay indonesiyaanka waa dad mogtahay akhlaaqday ku soo islaameen tujaar baa tagtay saasay ku soo islaameen siirada markay akhristaan waxay aad u jeclaanayaan marka nabiga iyo asxaabtiisii iyo dhulkan kuwaas soo aadaali markay meesha imaadeen maskaxda qofka waxaa ku jira ma og tahay haddii dhulkii asxaabtu joogi jireen uu tago asxaabtiiba inuu ugu tegi meesha markaase waxay ugu tageen sidii asxaabta lagu yaqaanay si aan ahayn
وأصحابته محلو يقاني مسلمين تيسودوا ويان مؤمنين تجعلادان قالوا يكبر النقدان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وحالته قالوا دي أن وحبل ويدينين مسلم صعدة أو لقبنا له ولو ترحيلها والحاجة دي ودا كعبنا أنا صعدانية ما هو بحث مد باكستان مركو سديد مروح كله على ترحيله وصار نقضاله وحنا يوم هذا إسكت جوت ودن كاجر وحور أني ما يو أنا وحنجعلها كعبة عربي أنا مكتوب حوجا ويرجع جبنا يانو دتكاس نقفق عربي هذا ما يقانن وحور ده يسوع هذه الشيء جاي مكة في أنا في مكة أنت يجرت أنا وإيمان علي ولكن بيعلي ذيك مسلمين تمرك مكة ساو جعل أو إنه جامي وباهن ماشي مسلم لقى دوين لها يا وحار كمسلم كي ليهانينا يو قال لي سو دوينا هذا مثلا لبس صومالي أو من باسبور كنديان وتو أما مريكان من باسبور صومالي وتو بل حج كدتك التغفيرية ولا على إسلام شيء واحد كان لكن هو باسبور كنديان أما مريكان كان هو باسبور صومالي كان كنديان كوتي صومالي ولكن لا السعودة مركو باسبور كيس تاجو بمجرد يونايتد ستيت أوف أمريكا مركو لو أركو تفضل يا أخينا هذه هرت صوصع هركو صوصع كي صومالي سعودين على جنب هذا حاجة يفرس مركاسا ما أنت نقول ده هنا كي مرة ربح وكرة فاضة بناك سوق مركز محاولة ما ينادى هوتيل عن سوي ما نكمل سكرة محاكل اللي يحيي ورقد ذاك اللي يحس محل إسكوجا سيد إسكوجا أصحاب تدميش جوج العين محمد رسول الله والذين معه معايا أشداء على الكفار الرحماء بينهم صومال ninkan Soomaaliga baasaboorka wato waxa lagu ixtiraamay Kanadiyaanka ma aha Soomaalinimadiisa iyo midabkiisa ma warqadan waxa ku qoran dadka iska leh laga cabsanaya goorma isku gaalay laga cabsado yaa ayuha alladina aamanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam ba'da 'aamihim hada wa in khiftum 'aylatan fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi qur'an ma markaas akiim Maleesiyaanka markuu imaado wuu yaabay gaaladii oo la soo dhaweynay muslimka oo la eeriyay wuxuu nimayahu waxa idin sheegaa أنا مركان ودن كان إيماني وحان مليناي عمر بن الخطاب يا أبو بكر الصديق يا إنا نقول تجدونه رقم كودي يا سيدة عنكم مغلي جري السيرة لكن ماشي وحان نقول ما بيبا أبو جهل يا أبو لهب أنا أقول ما ماشي يعني رقم كأبو لهب يا أبو جهل أو جعل جعله أو مسلم كان نعباء أي الناس هو ما سوي حجران مرك حالة السيدة أسأ قفك كل حجر أول الربع إنه علماء الدنيا يراده والله كعب صدق دول كان معها حتى الله ما مدها دولك كلام مسلمين دنبيغا لوغو سميهو وكدرن yahay dembiga dhulka kale lagu sameeyo maxay meesha waa meesha nabigu uu socon jiray waa meesha nabigu ku aasan yahay waa meesha sidaas ah meesha muslimiinta laga ururin lahaa in muslimiinta la kala geeyo oo muslimiinta la yiraahdo la kala firdhiyo oo hadana dadka muslimiinta u dhaqdhaqaaqaya ee warnamayo saan ma asaas maanta la siicaayo akhwaa muslimiinka ay sheegaa fikirkooda waxa kamid ah imaam xasan al-banna yaa waxa idinka siyaasadda ka sheekaysan ka waran wuxuu yaa qowmana ذاتك يليو إننا نناديكم والقرآن في يميننا والسنة في شمالنا وعمل سلف الصالح من أبناء أمتنا قدوتنا فإذا كان هذه عندكم من السياسة فهذه سياستنا وإن كان من يدعوكم إلى الإسلام وإلى تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام سياسيا فنحن والحمد لله أعرق الناس في السياسة بالمال نجي واكس أضو مركز ذاتك وعواهب وأيضا ما تحلقي وعلى سوق القريج لي معه بنانك قفل بدعادي soo dhigtay liyahlika man halaka an bayna wa yahya man hayya an bayna marka imma an takuna ma'a al-haq oo tiraada islaamka quraanka ayayna kala bixinay wama ikhtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila Allah sama quraanka waaqac muslimiinta ka raba halkan hala keeno cidii ku toosan hala raaco cidii garamarsan laga qabto ahlan wa sahlan laakiin ana islaam ku toosleena hadana dadkii islaam ku dhaqdhaqaaqay aan haysana waxaan rajaynayaa inay noqoto marka Hamza bin Abd al-Muttalib أسبابته كسر إسلامي وحايد مال يا وحايد ماذا أبو جهل نبي وعاي سو عينا نبي ولا مهلم جبر أو شيء يكتب حالي ساسا ما أنت عضي وبحي أسوأ أبو جهل ومال فردية أو ضيال الشيء كيسنا أتجد قان صدي وتنتو ماذا حقول فتاوي حكيري أتصبه وأنا على دينه موحد عيني سأنو دينتي سكجرة مركز دين تسوقله بمعنى وحقيرك وقبتي قف مظلوم أو العينايو oo aan isdifaacaynin oo hadana la sii haysto macna bin aadamnimada muru'ada dadnimadku waxay keenaysaa al-wuquf ma'a al-madlum madlumka in la garab istaaga dhaalimka laga bari noqdo maanta waxaan rajaynayaa marka insha Allah caalamul islaami waa u jeedaan maanta soo kala noqday inta dhaqdhaqaaq islaami socota
oo islaamiyiinta la yidhaahdo waxay rabaan ummadahoodu inay dad fiican oo sidii islaamku ah inay ku dhaqmaan isticmaarkii ina gumaystay kuwii inooga tegey oo inoo sameeyeyna sidii isticmaarka inaan ahaana ayuu rabaa shucuubtu marka inay xoroobaan ayay u socdaan amaa inaad maca taxriir noqoto oo in la xoroobaa ogolaato wa imaa maca alcabiid in la isgumaysto oo hoos la fiiriyo waa la kala baxay marka qofkii waxoogaa adduunyaha u xilanaya waa tii khudbadaan ku soo qaadanaya waqaala aladii aamana yaa qowm ittabicuunii ahdikum sabiila rashaad yaa qowmi inamaa hadihi alxayaatu اdunya mataac waa in yaro raaco wa ina alaakhirata hiya daaru qaraar qofkii aakhira rabo addunyada waxba la ahayn mabaadi'diisa iyo diintiisa ha ilaashado qofkii waxoogaa yaroo irtizaaq oo xoolal meelaha lagu qaaqaatay oo lucaabun min addunya dharaarka addunya rabana cidduu doona dabadhiifa u noqdo laakiin fastamsik biاladii uuxiya ilayka inaka calىa siraaطi mustaqiim ilahay diintuu soo dejiyey in la haysta ayaa la rabaa diinta ilahay soo dejiyey maxaa loogu talagalay dadkoo dhan inay ku wada dhaqmaan wax la yidhaahdo intana waa diin intana diin ma ah islaamkeennu ma qabo masaajidkana waa diin suuquna waa diin baarlamaankuna waa diin qof kasta waxaa la rabaa meesha uu joogo ittaqi اllaaha xayثu maa kunta ciddii kala qaadqaada marka afatu'minuuna bibacضi اlkitaabi watakfuruuna bibacضin islaamku marka shaamilkaasuu yahay ilaahay subxaana wa tacala cizadii islaamka allah soo celiyo ummadda muslimiinta ah dhibka ay ku jirta allah ka qaado qofkii khayr ummaddan islaamka u haaya ilahay gacantiisa khayr ha inagu siiyo qofkii dhibaato iyo hagardaamo la wadana allah inaga kaafiyo sal allahuma calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu